hangaajoodo aabbahay hanwaayo walaalahay hanwaayo qaraabadayda hanwaayo waxay dhibaatay soo gaadhahay soo gaadho laakiin mar haddaan muslim anu aanahay islaamnimada waan ku qanacsanahay diinta islaamka igu filan oo ideeqi doonto weeyaan diinta islaamka kugu filnaato ayahal muslim ha eegin hunguriga nin muslima oo dadkeena ayaa maalin maqlay inuu dhoofayo wadannada reer galbeedka marka ayuu rabaa inuu ubadkii reerkoo dhan u qaado markaasaan salaamnayo salaamu calaykum ma sha allah bal warano waxa igu maqal inaad dhoofaysid markaasuu waan dhoofayaa waxagee tegi dhulkaas maxaa jira wuxuu qaaradan afrika la yiraahdo la iskuma hadlayn karo buuri nabadgelyo ma taalo tacliin ma taalo caafimaad ma yaallo shaqo ma taalo system ma shaqeeyo kolba ninka meesha haystoon baa dadka ku jooga marka wadannada horumaray ee nabadgelyadu ay taalo ee dhakhtarka iyo tacliinta fiican leh ayaan ciyaalka mustaqbalkooga la raadsanayaa buu yidhi u fiirso Khalid ibn Saciid eeg shalu islaamay abihi baa ku leh baadiye bii ku siin maayo markaasuu u jawaab uu leeyahay carabka maaha waxa jawaabaya waa caqiidada ayaa jawaabaysa iimaanka qalbigiisa ku jira jawaabayo ku leh aabba haddaad adigu baadkii biyahaagii aad iga mancisatay aniga ilaahay baa iquudinayo isiinayay buu ku yidhi Khalid ibn Saciid uu yimid nabigu yimid calayhi salaatu wassalaam waa markuu nabigu joogay daartii Arqam ibn al-Arqam halkaa buu nabigu xataa masaajidka xaramka looma ogolayn halkaa buu nabigu saxaabadiisa quraanka makkiga makka ku soo degay ee aayaadka quraaniga makkiga iimaaniyaadka aakhirada ka waramaya iyo qisasul anbiyaa iyo wal umam as-saabiqa ayuu markaa nabigu dushooda ku akhriyaa iimaankooga ayaa markaa dhismaya yaqiintoodii caqiidadooda ayaa la dhisayaa u tarbiyadaynaya nabigu calayhi salaatu wassalaam deedna maalin maalmaha ka mid ah wuxuu maqlay Khalid aabbaha waa sankaraad deedna markaa buu soo socday aabbihii oo sankaraada buu dul yimid odaygii dhalay markaa buu dul joogsaday odaygii baa sidaa u eegay ma Khalid baa aabba waa Khalid weeyaan diintii Muhammad ma ka soo noqotay markaasuu yidhi may aabba may kama soo noqon kamana soo noqonayo mid iga qor buu ka yidhi mid iga qor haddii xanuunka aan ka kaca buu yidhi maanta ilaaha Muhammad maka lagu caabudi maayo buu ku yidhi Khalid ibn Saciid uu maqlaya hadalka gaalnimadu aabihii uu ku manaamay inuu naar ku dhacayo qiblada intuu u jeestay ayuu yidhi samada intuu eego gacmaha cirka u taagay buu ilaahu aabbahay mowqifkiisa wali ma bedelina halkaas oo ma taagno ilaahu xanuunka ha ka kicin ilaahu ku qaad buu yidhi isagana